hawsheeda insha Allah marwada ما شاء الله aad iyo aad noo soo martid gelin doontaa hadduu ilaahay idhaahdo aad baad mahadsan tahay sida sharafta leh karaamada leh barnaamijka nooga qayb qaadatay midabaa jira midabada noocaad ka hesha horta midabada sidan markaan u labisanay midowga casaanka aad baan u jecelahay midabada kale cadaanka kale waan ku labistaa midabada greyga oo kale aad baan u jecelahay marka adigu midabada fudfud baan jeclayn huruud iyo buluug iyo waxa ahayn ما شاء الله yar maryo laba ayaan kusoo qaadan doonaa su-aalihii inay weydiiyeen asxaabta nagu xiran bartana ku leenahay youtube-ka inkastoo laakiin aanan intaanan gelin muxuu ahay su-aalaha adiga ku dhacda barnaamijkan sidee baad u aragtaa wallaahi horta iska filmis and vlogs iyo adigaba iyo bahda farsamo yaqaanada aad baan idin wada salaamay dhammaantiin wax weeyaan waa barnaamij runtii bahda dhalinyarada ku dhex jirta social media ay aad ugu baahnayd in qofku bal horta la wareysto oo lasoo qabto xogtiisa la ogaado waa wax aad u qurux badan waayo dadku waxyaaba badan bay dadka ka aaminsan yihiin su-aalo badan oo aan jeclaa in la weydiiyo oo aan meel aan kaga jawaabiyo janis aan kaga jawaabo lahaa ayaan caawa janis welina ka jawaabo barnaamijkan soo dhaweynaya adigana walaalkay si gaara ayaan kugu mahad celinayaa bahda farsamadeena aad baan ugu mahad celinayaa marka waxaan leeyahay hawl wanaagsan baad bilowdeene insha allah aynu halkaa kasii wadno waxaan u galnay su-aalihii midhiya labaan kusoo qaadana milaa saddex walaalkay maxamed cumar ayaa halkan wuxuu nagu soo qoray amis haradid ma u xustay talo faniskaaga wallaahi xaqiiq baa idin kala hadlaya midda quri aan la dafiri karin waxa weeyaan inaan idin jecelahay inta qof bilaadina qof xiisaan idin xiisay inta qof bilaadina qof daneeyo aan idin daneeyo aad markhaati ka tihiin intiina social media aanu asxaabta ka nahayn ka wada soconno anigu waxaan aaminsanahay anigu heerkan maanta gaadhay joogo wallaahi bilaahi talaahi waa sidii magaca ilaahay kumaan soo gaadhin karti iyo sharaf iyo waxaan dadka dheeray idinka dadkii taageerayay daawanayay bay soo gaadhsiiyey waanan aaminsanahay awoodiina intaadii jeceshiin in ka badan baan idin jecelahay waan idin ballan qaadaya horena waan idinku ballan qaaday iminkana waan idin ballan qaadaya mar kasta inaan ka shaqeeyo farxaddiina mar kasta inaan ka shaqeeyo wixii aad nafis ku dareemaysaan mar kasta inaan ka shaqeeyo wixii idinka dantiina waan idin xiisay maahe waxaan idinku xiisay sidii hooyo ilmaheedii ka maqan yahay ma garanaysaa siday ugu xiisi karto dareenka dee adugu xiisa marka la idhaahdo saasaan idinku xiisay korkaadii saarantiin dhammaantiin meel kastoo daafa adduunka joogtaanna si kal iyo laaban idin jeclaan idin salaamaya maasha allah kolley su-aalaha halkan ku haya waa su-aalo isku mid a isku soo noqonaya xaaskaaga magaceed allahuma salli ala maxamed muxuu uga baxay intaan weydiiyey weeye kolleyna bulshada waxay jeceshahay su-aalaha aada iyo aad ku xasaasiga kolley su-aalihiisina waa intaasu may u badan yihiin wax kaloo dheeraada kuma jiraan su-aalaha neeragadiyan odhan lahaa aamin aad iyo aad baad mahadsan tahay sida sharafta leh kalaamada qadarinta leh wala barnaamijka aad nooga soo qayb gashay asxaabteena daawanaysa iyaga tala iyo tusaale maxaad leedahay waxa weeyaan waxaan jeclaystay horta inaan fariin halkan ugu gudbiyo dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed bulshooyinta soomaaliyeed meel kastoo daafa adduunka joogto dhalinyarta social mediaha isticmaasha aadka ugu jirta fariin baan doonaya caawa halkan anoo ka faaideysanaya inaan fariintaa gudbiyo soomaaliyey waxaa soo badatay xumaantii waxaa soo badatay fasahaadkii waxaa soo batay dadkii oo waxyaaba khaldan laga faafinayo waxaa soo batay dadkii oo la dhibaateynayo waxaa soo batay dadkii oo la caayiyo waxaa soo batay dad magac ku raadinaya waxyaabo ka baxan anshaxii soomaalida iyo anshaxii islaamka iyo anshaxii diinteena suuban waxaan idinka codsanaya walaalayaal idinkoo isku duuban waxaan idinka codsanaya qof kasta adduunka kuma soo dhalan isagoo wanaagsan qof kasta adduunka kuma soo dhalan isagoo nadiifa qof kasta adduunka kuma soo dhalan isagoo magaranaysa sax oo dhammaystiran noloshu qof xun baa qof wanaagsan noqda qof wanaagsan baa qof xun noqda maanta laga bilaabo waxaan idinka codsanaya anigan ugu horeeyay war intii aan waxyeelay intii aan dhibaateeyey intii wax iga tabanaysaa intii aan dhibay kal iyo laab ilaahay dartii ilaahay wax lagu dhaafaa ma jire ilaahay dartii cafiya soomaali waxay ku dhaantay inay isjeclaato iswalaashataa habeeraatee ma jirto waxa weeyaan dhalinyaro markaynu nahay waynu duulduul badan nahay waxyaabo badan buu khalad bay naga yeedhsiinaya waxyaabo badan dhibaatooyin baa dhacaya waxyaabo badan way naga khaldamayaan waxyaabo badan inagoon islahayn qalloociya aynu qalloocinaynaa soomaaliyey aynu iscafino
war qof bilaadan xumaantiisa afaafin walaalka xumaantiisa afaafin walaalka jeclow walaalka horumarkiisa jeclow walaalka inuu tallaabo iyo horumar nolosha ka gaaro jeclow ka dhiirigelinta uga baahan tahay dhiirigelin weydiiso ka kaa hooseeyaad gacan qaban karta gacan qabo waaraan iskaashano waaraan istar yeelno waaraan isxanaanayno maanta social media sidii hore maaha qof kastaaba wuxuu ga faaideysanaya halkii iyo meeshii isaga u daran war qofka bili-aadanka ee xumaanta qof walaalkii faafinaya waxaan leeyahay ilaahay walaal ka cabso dhacdaye haw noqon waxaa jirta muuqaala lagu faafiyaa baraha bulshada anigu ma odhan karo qofkii muuqaalka loo duubay baa faafiyey laakiin waxaa laga yaaba in qofkii mobilka ka lumi karo waxaa laga yaaba in laga xadi karo waxaa laga yaabi kara in cilado kaleo saaxiibka ogalo aaminin inuu waxaa sameyn karo walaalayaalow waxaan leeyahay war qof kastooba wixii ku gaaray danahaaga adigu secretkaaga hayso ha wixii laysku diraye kale ee halista war qof kastooba mobilkaaga ku hayso waryaan waxba laysku dirin war ha lays ilaashado farxaddu waxay ku jirtaa in lays ilaashado soomaali meel kasta dowlad kastay leeday ilaahay halkeeda ha ku barakeeyo dhalinyar kasta meel kastoo daafaadun ka joogaan soomaali ilaahay halkooda ha ku barakeeyo afka soomaaligu intuu nimideeyo waanu ducaynaya waxaan leeyahay oo keliya maanta waxaa lagu dhimanaya waa sharaf sharafteedu huwantahay haddii hal mar dhacdo wallaahi bilaahi tallaahi hanti waa la helaa magac waa la helaa wax maamuus waa la helaa war waa lagu ixtiraamayaa laakiin sharaftaadu maalintii dhulka gasho wallaahi way adagtaysay uga soo noqoto waar qof kastooba isku day inaad sharaftaada ilaashato waar qof kastoo isku day inaad dhowrsanaato waar qof kastoo isku day inaad horumar nolosheeda ka gaadho waxaad arkaysaa tictoka hablo badanoo soomaaliyeed oo shalmadii dhigtay oo dabeeta jaasaya inani ma soomaali oo dhan bay raaligelinaysa ay ka doonaysaa inay soomaali o dhan iska iibiso mise hal nin bay ayay war inanaan hasaawin maanta ma jirto qof kastayba qofkaaga isku qurxe isaga u jaas isaga muuqaalada tictoka soo dhigayso u dhig laakiin soomaali oo dhan haddii jirkaaga daawato wax allaaliya waxay soo kordhinayan ma jirto mid baan dadka aada ugula tartaarmaya anigu maanta dhalinyaraan ahay aabbaan ahay waxa weeyaan ilmahaygu maanta aniga wuxuu maanta iga arko beri markuu weynaado wuxuu iga odhanaya aabbo adiganta adiguba aabbo waa adigan adiguba waa ku kaa markaas sidaan xumaan uga waanin karaa waxa weeyaan qof kastooba wixii dhacay caaf allahu camaa salaf iska maaree maanta bog cusub bilaabo barnaamijkaasi markuu soo gaadho walaal macan bog cusub bilaabo wax kastoo sharaftaada dhaawacaya ka wantow wallaahi bilaahi tallaahi war caan baynu noqonay dadku wayna barteen xumaan laakiin caan kumaanaa noqon jaas caan kumaanaa noqon ciidaanu cayna caan kumaanaa noqon dhibaatahan dad geysana caan kumaanaa noqon dadka aaminsan in marka la isqaawiyo caan la noqonaya wallaahi way khalad fahansan yihin waxaa jirta 100 way kale oo caan lagu noqon karo sharaftaa ka muhiimsan anigu maanta waxaan aaminsanahay shaqadan ku guda jiray ilaa maalinkaa maanta halkaa taaganayay inaan sharaf ku noolaa weligiina waxaan jecel inaan sharafteeda ilaashado qof kastoo soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmaya walaal macaan sharaftaada ilaasho sharaftu waa furaha guusha sharaftu waa astaanta qofka bilaadanka hagta maanta ha ka fikirin mustaqbalkaaga soo socda ka fikir taageerayaasheeda intay taageerto waxaan leeyahay idinka wax idinku hay waan idin jecelahay halkiinaan idinku salaamayaan idinku tixgelinaya aad baa mahadsantiin aad iyo aad buu mahadsan yahay walaalka aaminsa xardin sida quruxda badan ee uu talada inoo siiyey waxaan rajaynayaa kuwii qaatay kuwa dooma inuu alla inaga dhigo aaminsa xardin aad iyo aad buu mahadsan yahay kulli barnaamijkeena kuntiga gabageli baan iska gaarnay maasha allah waxaan jeclaan lahaa in aan dib ugu yar noqono intaan barnaamijkeena gabagabeyn kolley intaanu muxuu ahaye maanta bilaaban sheekooyin ayuu barnaamijku dadka ku saacasumi jiray sheekooyin qaar adiga ku dhacaya qaar muxuu ahaye aad ka sheekaysay ugu jiraan marka waxaan rajaynaya inaad la soo qabato hal muxuu ahaye qiso oo qosol ah horta sheekooyinka aad baan uga dambeeyaa waanan jecelahay sheekooyinka waxaan kaaga sheekeynayaa berigii dagaalada waxa la yidhi nin baa wuxuu ahaa qolooyinkan baabuurtan ambalaaska wada markaa berigaa khamriga waa la iska cabi jiray kadibna dagaal baa dhaco wuxuu soo qaaday 20 nin oo meyda ayuu ku soo riday ambalaaska 20 nin oo meyda ayaa halkii laga soo qaaday meeshii deeto waxa loo keenayey meel kale la geenayay oo lagu aasiyey kadibna roobaada ayuu wadankuna da wadooyin mulahayn oo dhiiq u ahaa garanaysa kadibna BBC u siraata kadibna BBC da horanto dagaal xooggan halka ka dhacayo waxaana la xaqiijiyey 15 qof in meydku
inuu 15 qof yahay ayaa la xaqiijiyey wuu yidhi 15 qof bireeg intuu gaari qabto daaqad dama furay wuxuu yidhi waryaareen waan ogeynaa 5 ka mid inaanay dhimane culays meesha jiray soo dedeganiyo idinku isfahmo soo dega ma garanaysaa marka wallaahi waxa qisooyinkaas waxa weeyaan wuxuu soo dega nigata ciyaarta waa dhiiqa gaarigu ma soconaya soo degni shantii nus alqaamo marka waa mid garanaysaa marka way badnaan qisooyinka waxaa jira marka qisooyin badan aniga igu dhacay iyo waxaa jira qisooyin maada wallaahi horta qisooyinka aniga igu dhacay way badnaayeen habeenku suraalka iga dilacay qisada weligii ma ilaawo habeenkaana waxa weeyaan inaan saaxiibnaynin inin bii igu dhooni tegay anuu hasaaba ma noqon kadibna waxaa dhacday inantiyo dabeed waxaa tiri surwaal cad iyo shaadh madow aan lahaabaan xidhay markaa surwaal nigis baan isiri ka hoos xidhay surwaalko kadibna uu ka hoos muuqday madow buu ahaa surwaalkii gaabnaa dabeed waxaa tiri maad kaba tegtidba maxaaba ka kala muuqan waaban kaba tanaa surwaan ka tegey inankii baan raacay xaafad baa adiguna lagu ballamiyey sidaan soo soco anugu markaa mawil baan istiwaan ka tegey mawilkii tan ka soo laab ayaa gabadhii waxay nagaga soo dhex kacday ugu yaraan 50 kuray oo dhex fadhido waanigana way soo kaceen ku takiyo anugu markaan hareeraha iga baan khalis ka dhigo inaan ordo waan isku diyaariyay ma garanaysaa tiin baa la soo tuuro halkaas iga sii xigtay intaa markaan dareemay baan ku jeexay wiif adoo isaan u yaacin wadadii aan kusoo dhaxnay dee nin culusna waan iska hayo inkastoo beriga xooga cuslayn iskoroga meesha maraysaan ku dhegay dabada lug markaan saalaan lugtii labaad sare qaad ayuu surwaalkii xag hoose ilaa xagga sare isku furwa waa naxdinta horta maan deerimin marka hore gaadhigii baan la yar dhaqaaqo mid baa soo feereyso wataynaa layrkii uu noogu shida kadibna lugtii baan kala degay waxaan isiri waa balniyo yaan meesha lugtii baan kala dego lug baan kala dego lugtii markaan saa ugala degay ayaan xagga dambe eegay mise way soo yaacayaan wallahi inaanay naga harinba iyagii dabeetna waxaan isiri dabadoo la daawadayo in lafeega lagu dilo dabadaa dhaanta waan iska qabsada wallahi dee ilaa suuqan saa uga laalaado kiino meel dhexe in badan buuna daba socda waxaan isiri ogaan buu ila googaayo in badan dee berigaa lama garanayna haddii la garan lahaa imka halkaa filim baa laga mateli lahaa maasha allah aad iyo aad u mahadsantahay sida quruxda badan le aad nooga qoslisay daawadayaal maadaama su-aalaha noo dhammaadeen waan isku qoslinay sheekooyin baan iska bilaabanay aad iyo aad waxaa u sameynaa waa idinka farxadiina aamin أنا عدت كان كهلا والله كم دالو بينكم شيء ما وقفك بالآذان كده قارنا فلان كحيسين قارنا ويتذكر وضلوق باللي بدنكوا فلانين بدن بدو قعد معند أنا واحد شلون لها إن إيش قوته إلهي أنو أسترو إن إيش قوته هاس إلهي أنو أسترو وحويان أرتنيو هسها وحن بنسكت شعلون أنو باتشعل إن أرتينا فينا نقدم شعلي لكن هسها heesaha qiirada waan jeclay iyo heesaha maanta marka dabacsanida hadalkiyo deganaantu inan yahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca keliye kaga doorta kayrka dugsi dhaaxanta celi iyo dawadayday tahay adigoo daldheer jiran halkan ka dareemaa deeqa waan ku jecelahay wallaahi waxa weyaan heesaha maaragtay waa heesaha ma garanaysaa aan inta badan dhegeysto waxaa jirtoo kale anigu heesay dhaxaan inta badan aada u yara dhegeystaa hees kale jirta waxay tiraahdaa meelan joogaba aaday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muhato marmi weydo musanawdo ku dulmeerte marwadu maroon kuma taala marma xidhate miyirkii bay la tagtee meeday mooyiyo meeday away maanqaade
meeday mooyiyo meeday heesaasoo kale waxa weeyaan markaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo way madowde marka waxa weyaan heesaas waa heesaan aadka u jeclahay waxaa kaloon jeclahay heesaan in badan u qaado marwada oo iyaduna ay jeceshahay aniguna inadu jeclo daymada xishoodka markaad luqunta dadabta xamday hadbaa laygu didayaa oo layga darayaa indhadeeraale dumar ugu filrooneyhey dayax 15 dahab lagu mataaliyey da-datii 17 kuga loogu daraye indhadeeraale heesaasoo kale waxa weyaan waa heesaan aad u jeclay waxaa jirtay hees baa jirtay aan weligiiba dhegeysan jiray waa heestii ugu horeysan qaraamiga barto niman baa beri igula tartamay igu uri hees qaraamiyo soo xifdiyo kadibna heestaasaan xifdiyey heestan axmed mukaa qaaday ilahay naxariista janaa siiye hees waxaa odhanaysaa hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraad hadday gabax noqdaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan kartaakii wax karaada loo geysan jire gaasiray inaga iyayna kala guurayaa bahda sky films and vlogs aad baan idin salaamaya waxaan u malaynaya caaw waxaan hagradi ma jirto aaminsa xardida walaalka aad iyo aad baad umahadsan tahay kulli caaw wuxuu la hadha walaahi ma jirto sida qiimaha uu noo qiimeeyey aad iyo aad baan kaga mahad celinaa walaalo sida sharafta leh ee qiimaha leh ee karaamada leh ee barnaamijka nooga qayb qaadatay waarniyo daawada barnaamijyada hore uu ka duwan yahay sheergareeya odhan lahaa oo asxaabtina ku sheergareeya bal intaad yarnoo dhe aad baa mahadsantiin waxaan israacinayaa salaanta iyo fariinta horta aad waxaan u salaamaya waalidiinteedii boqoranayd nolosheeda maanta heerkan aan taaganahay soo gaadhsiiyey aabahay ilaahay magaca iyo cimriga caqliga waa u barakeeyay axmed saxartiid xirsi iyo weliba hooyaday badra waxaan salaamaya dhammaan faamiligeyga quruxda badan abtayaashii adeeradii eedooyinka habriirahay iyo faamiligeyga guud dhammaantood igu isku duuban aad baan u salaamayaa waxaan salaamaya walaashii nimco waxaan salaamayaa walaashii sahra waxaan salaamaya xamdi qurux wanaag waxaan salaamaya subeer waxaan salaamaya dadkaygii oo dhan waxaan kaloon aad u salaamaya walaaladeedii bahdaydii kooxdeedii deexshow oon leeyahay jiro oo jooga meel kasta iyo meel kasta inu joogtaanna ka muuqda kaalin gala guushiina iyo farxaddiina waan jeclahay waxaa kaloon aad u mahad celinaya bahda jilaasha soomaalida waxaan aad ugu mahad celinaya walaalkay rabiil axmed deeriye waxaan aad ugu mahad celinaya walaalkay najax deeqsi waxaan aad ugu mahad celinaya walaalkay xuseen aad bay dadku tiri badan yihiin adigoo kala fadhiya aad baan kugu mahad celinayaa bahda kamarada iyo farsamada inoo qaabilsan aad baan ugu mahad celinayaa waxaan aad ugu mahad celinayaa waxaa jira qof adiga kaa fikira ku jecel walaalkaya ku daryeela ku xanaaneeya walaashii nimco ilaahay barakeeyo waxaa kaloon aad ugu mahad celinayaa idooyinka waxaa jirta idooyinka markay idooyinka yihiin waxaa jirta idooyinka idaan ugu jeclay oon aada u xiiseeyo oon aad kaftankeeda uga helo oon iiga dhow idooyinkayga kale iyo waalidkayga kaleba idadii hibe saxarteed xersay iyadii caruurteeda iyo seegeeda waxaan leeyahay ilaahay cimriga iyo caqliga iyo garashada dhammaantiin idin barakeeyo bahda dadweynaha iyo taageerayaasha ku xidhan janalkan waxaan leeyahay caawa idinkaan martiidinahay waxaan marti idinka ahay oon idinka rabaa intii i taageertay i daawatay iyo inta meelaha kale nagala socotayba halkan sky hala soo booqdo janankaa barnaamijkaas markuu baxo isbedel aan caadi ahayn ayaan rajeynaya inaad ku samaysaan halkani waa halkeenii halkaasina halkeenii bahayd meel kastoon kasoo muuqanana waa halkeenii barnaamijyada ayaan la daawanay 40 kun iyo 100 kun daawane 100 kun oo subscribe iyo 100 kun oo like iyo 100 kun oo share aan ka rabna ma fahanteen marka wax la iskugu yahay la isku walaashada la isku magaranayay la isku tilmaamsada wax weeyaan la isku jecel yahay wax weeyaan
in lays dhiirigeliyo leegtood dhac ku siisaa waxba adiga ku yeeli mayso laakiin annaga waxaa laga yaabaa inay dhiirigelin noo tahay marka walaalkiina barnaamijyada quruxda badan u bilaabay iyo fikradda cusub soo kordhiyey aad aynu ugu bogaadino aad aynu hambaliyeyno nacabku waa iska badan yahay dadka ku taageera ku jecelna waa badan yihiin mar kasta dadkeena jecel baa ka badan dadkeena nacab marka waxaan leeyahay aynu ismuujino inta amiis xarjiya taqaanaa halkan ha timaado meesha ha igu ceebeenina nin ballaarhanoo culus baanay marka ha la yidhaahdo wallaahi waa meeshii waa la kala kiciyey intaas aynu ka codsanaya aad baa mahadsantiin aad iyo aad waan hubaa inuu isbeddel fiican iman doono maadaama actor buuxo soomaaliduna aad ku jeceshahay aad iyo aad baan kaa macelinay walaa sida qurux badan barnaamijkaada uga soo qayb gashay kolley mahad celin waan ku mahad celinta ku macelin kara karo dhammaantii waxaan qoran lahaa aad iyo aad baad mahadsantahay amiin caawa sky films and vlogs diyaar baan ahay mar kastoo layga baahdo barnaamijyadu way badan yihiin haddii sheeko loo baahday haddii qosol loo baahday haddii idinkuba aad tiraadaan war soo qabta wadaadkii anigu khamiis xidhan baad isoo helaysaan maasha allah halkan aan ka duulaynaa halkan aynu ka wada soconaynaa hal la wada farxo muhiimaddu waa farxaddeenna aad baa mahadsantiin aad iyo aad walaalka aad baan ka macelinaya